beel aan eyle ahayn oo astaanta jareer wadata oo boqortooynimo sheegan karto ma jirto. hadday jirtana ha soo sheegato ilaa iyo 6 boqor ilaa iyo 5 boqor ayaan soo tirinaynaa magacyadoode. bal idinku car haddaad boqortooyo tihiin 3 boqor ama 2 boqor soo tiriya. horena waan u sheegnay 2 boqor 64 sane laguma noqdo boqor. waxaan rabaa inaan ka hadlo adooman ciilan oo ku sifooway iska horkeenka bulshada reer Shiidlo iyo reer Eylo oo maalin walbaba qabiil walba ku dhagan ama biyamaal caynaya ama shambara caynaya ama hintara caynaya. waxaan idin cadeynayaa fiiriya reer Shiidlo inay fallaagihiin aan idin cadeynayaa. mar waxay isla dagaaleen reer Eylo markii xal laga gaaray waxay u carareen shabeello. shabeelladii ka soo carareen markii shabeelle iyo Shiidlo xal laga gaaray biyamaalkay u carareen. marka dhalinyarada reer Shiidlo magac xumeynaayo ama suurad xumeynaayo inta ugu badan ma ahan dhalinyarada la yaqaano ee Shiidlo ka dhashtay. intooda badanba waa kuwa wacala ah asal lahayn meel loo raacana lahayn. waa kuwa aan shalay ka digaynay ee aanu lahayn. dhalinyaroy markaa baraha bulshada aad soo galaysaan ha ku kahtoomina kuwa dhaalimiinta ah ee beelaha Soomaaliyeed ama Shiidlo iyo Eylo ama Shabeelle iyo Shiidlo ama Shabeelle iyo Shambara ama Shiidlo iyo Shambara iska horkeenayo. ha ku kahtoomina waa wacalo aan la garanaynin asalkooda. markii aan anagu odayaal Shiidlo ah dhalinyaro Shiidlo ah la fariisanay oo aan weydiinay kuwa buunbuuninayo magaca Shiidlo iyo kuwa iska horkeenka bulshada iyo propagandada iska horkeenayo asal ahaan waxaan u aragnay inay ahaayeen naloona sheegay soona raadin xaqiijinay inay yihiin wacalo asalna lahayn meel loo raacana lahayn kana yimid deegaano beelo kale oo hawiye ah. fiiriya waxay ka yimaadeen deegaano beelo kale oo hawiye ah ee ani muuqaalkayga soo qaatay ee sidaa dhahayo sugu xuquuq ma lihin uu yiri dhahayo asal ahaantiisa waxa lagu leeyahay mana ku dhalanin deegaanka Xawaadley mana ku dhalanin deegaan ay Shiidlo degto. waxa uu ka yimidaa lagu leeyahay beel Shiidlo diris la ah oo laamika oraxsin degan. asal ahaantiisa marka waxaaba la xaqiijinayaa eega oda Muusow iyo eega oda Tifo kuugu qabaysanaya ee lagu dhalay ee wacalada ahaa ee dhulkan joogay inay ayuu qayb ka yihiin oo aan la garanayninba. saas daraadeeda dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada aniga ii matala ee walaalahayga ee reer Eylo waxaan idin kaga digayaa inaad ku kahtoontaan wacalo iska horkeenaya Shiidlo iyo Eylo. waxa ay ku sifoobayaanna waxa kamid ah markii Eylo iyo Shiidlo ay heshiiyaan dan uma arkaan heshiiskaas. waxa ay dan ka raadiyaan in ay propagandeeyaan oo ay yiraahdaan kama nihin diyaar uma nihin heshiiskaas ma waafaqsanin iyo heekada. waxaad aragteen wiil Shiidlo ah oo qalad oo ka dhacay qaladkiisii qirtay yirina anigu raali halayga noqdo qaladkeygii waa soo qirtay. qaar kamid ah kuwa adoomada ahaa ee cilnaa ee baraha bulshada propagandada iyo wararka ku turkuteenka ee beelaha iska horkeenayay sida aad ogtiin waxay yiraahdeen anagu raali kama nihin raali gelinta oo wiilkaasi Shiidlo bixiyay cidoo kala tashtay malahan. wala taziru waziratan wizra ukhra ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay. nafi kale uma dambaawdo naftaada ayaana lagu xisaabinaya. xaasib nafsi qabla an tuhaasibka yani naftaada ayaa la xisaabinaya naf kale wixii gashay laguma xisaabinayo. wiilka qaladka ee la ka soo galay ee soo caytamay wuxuu isu arkay bari in naftiisa la xisaabinayo oo aan Shiidlo laga xisaabinaynin. baraha bulshadu soo fariistay raali gelin buuxda oo lagu qanca ayuu bixiyay. Eylona way ku qanacday. kuwa asagiisa walaalihiisa waxay sheegeen in aysan marnaba raali ka noqonaynin raali gelinta uu ninkaas bixiyay. ma ayaga u dambaabayay hadii ay wax sheegayaan siday hadda wacaytamayaan u khaylinayaan ha u khayliyaan hana laga leexdo. qodobka halkaas aan ku soo xiriyaa. qodobka kale hala sheegto waan sheegay boqortooynimo hadii la sheeganayo beel aan Eyle ahayn oo boqortooynimo sheegan karto Soomaaliya waaye. Soomaaliya xitaa markii la yiraahdo waan soo marin ajuuraan ayaa u saaran. jawaabiin iska daa beelahaas kale kama hadlayno. waxaan ka hadlaynaa gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan aan ka hadlaynaa. beel aan Eyle ahayn oo astaanta jareer wadata oo boqortooynimo sheegan karto ma jirto. hadday jirtana ha soo sheegato ilaa iyo 6 boqor ilaa iyo 5 boqor ayaan soo tirinaynaa magacyadoode. bal idinku car haddaad boqortooyo tihiin 3 boqor ama 2 boqor soo tiriya. horena waan u sheegnay 2 boqor 64 sane laguma noqdo boqor. Bishaar al-Asad iyo Xaafid al-Asad boqor noqon lahaa oo boqorka dalka Suuriya la dhihi lahaa. ha ku kahtoomina waxaad sheegaysaan iska ilaaliya.